xafladda 18 May ee dalka Finland ayaa lagu qabtay bariga magaalada Helsinki. xafladdan oo si heer sare ah loo soo abaabulay waxaa ka soo qayb galay madaxda jaaliyadda, duqay, waxgarad iyo haween dhalinyaro aad u fara badan. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay munaasabadda hadallo khuseeyana halkaasi ka jeediyey madaxda jaaliyadda iyo waxgarad kale. dalka Finland caasimada Helsinki mar labaad xubnaha jaaliyadda reer Soomaaliland caasimada Helsinki waxaa leeyahay kusoo dhawaada sanad guuradii iyo munaasabadii ay xusayno 25 guuradii 2016 Helsinki. ciidamada qaranka Soomaaliland oo runtii meel nagaga yaala halisa oo shuruuda iyada ku abuuran waa kuwaan ku soo toorsano annagoo yurub joognay dowladooda ku naaloogo ciidamada qaranka qaybahooda kala duwan iyo saraakiishooda carruurtooda iyo xaasaskooda waxaan leenahay hambalyo waxaan ka salaam iyo hambalyo ku jeedinayaa dhammaan dadka Soomaaliland adduunka lacagtiisa meel ay ku joogaan dibadda iyo gudaha waxaan si gaar ah u salaamayaa asxaabta haddana ilaahayna waa ina ictiraafay innaguna waynu is-ictiraafay marka ictiraafka aynu u baahan nahay gudsi oo halkaa ilaahay ahay kaasuba aynu ku xidhay marka hambalyadaa ka baxdi waxaan kaloo hambalyaynayaa dadka reer Soomaaliland ee reer Finland saynu jirnay wax badan baynu qabsanay waxaad moodaa keliya waxaynu eegnaa inuu yahay aqoonsi aynu dibadda ka raadino waxaan kaa soo jeednaa inaynu ku bedelano inagu gudaheena inaynu aqoonsano oo siyaasadda gudaha xoojino oo dhaqaalaheena xoojino oo tacliinteena kor u qaadno oo horumarkeena ka shaqeyno oo adduunyadu waxbay kala iibsataa maanta waxbaa ictiraafkeenu ku xidhay inaynu iibino waxaynu iibinaa inuu noqdo sida hadda ma jirtaa magaalada quraxda deegaanadeeda waxaan leeyahay oo buu ka soo yeerayo waxaan leeyahay marka aqbali mayno haddaan nahay reer Soomaaliland jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Finland oo dhan oo isku dhulmada ama gobolka Tagdheer ka timaado ama gobolada dhan ka timaado waxaan leeyahay inay heshiiyaan oo shicibkii soo doortay wuxuu qabtaa qaadaysa dalka dowladda la taageero waxqabadka la taageero caqabada Finland waxbarashada fursadaha jira dhalinyaradu waxooda faa'iideysan dadku waxooda faa'iideysan marka waxaa la leeyahay maalin qaadada ay hambaliyada aad iyo aad baa ugu Aadan Yuusuf Cismaan, Home Cable TV, Finland.